mudana gadoomiye aad la ii soo jeediyay wax kama jiraan waa aniga askari qaran ahay gaarigana meesha meelada looga xiro waa kursiga hadii lagu xiro ninkii watay in lagu dili rabo oo dadka dhan ba kursigana lagu xiray ilaahay ugu shaqo shaqo inaan ku lahayn ninka makaanika aan gaariga u dhiibtay ee motorka iyo bedel aan dhahay horta waxaas ku xiray anoo meelo gaarigayga ku xiran oo anuu aan leeyahay oo shaqadeeda joogtada aan haysto sababta aan meelo uga xirnaay oo haddana aniga aan u kaxaynay oo elboor u geynay gadoomiye wax kama jiraan waa ka gaariga iska lahay anaa iska leh marka ma ku shaqaystaa muxuu qabtaa gaari jaadan ku qaadi jiray tookan ku lahaa ku leed yaa ku xiraatid gaariga ninka aan u dhiibtay motorka ilaa hadda garaash ku dhex yaala oo in la iga bedelo aniga aan ugu talagalay motorka iga bedel ninka aan dhaana waa Saleebaan furaa gaariga asaga ahay marka 4 maalmood aanu gaariga iga maqnaay maalinka shanaadna waa maalinka aan shaqada lahaay subaxda guriga uu keenay waa ta elboorka la aaday xilli jaada ahayd iskama aanan controlin ama soo ma tagnay waa la baari gaari meelada wax lagu qariyo waa hadii wax la saaray ay yihiin inta saarna arki lahayd haddayse arkin waxa arki lahay nimanka baariyo ama sooma gaari ama sooma baartay kor iyo hoos baa laga baari lagumana arkin elboorkan galnay gaariga motorka ma laga bedelay ma laga bedelay motor la ma wada mar gaariga sida motorkaaga ku yaala garashka motorka ilaa hadda garaash ku yaala waa laga bedelo ma markay lagama bedelin motor la ma wada gaariga maya motorkiisu waa fiicnaa waa shaqeynayay gaari kale ka soo dejiyay motorkaas markii hore motor kale cusub aan adarsan ku xiran rabay leeguma baxrin oo meena leegu xir gaariga gadoomiye ninka loo socdo oo in la dhibaateeyo la rabay oo dhibanaha horta aniga waa oo hantideedii nafteedii loo socday ani doorashooyinkan ka soo shaqeeyay intaas ciidamo la soo shaqeynay hal maalin shabaabna ma wicin imana soo wicin eedaasna shaqo ku milyan mudana gadoomiye yaa ku sheegay ninkaas inuu kugu xiray ninka waa ninka furaa gaariga hay waxa asaga qiraal u yahay oo yiri ninkaana soo wacay wuxuu yiri shaqan ku haya kaale iyo imaw anuu ileeyahay وعدنا واسفع جدنا وصح لكن وعد كاله شقن ku hay ay imaa anu aan dhahna ma jirto codadkaas kulay waa la helaa u maleynaa hadii baariyaasha laga rabaa Soomaa intaas waa badan gadoomiye eedeysanaha labaad Sulaymaan Maxamed Cabdullaahi geerislahan ayaa isna loo haystaa marka hore inuu ogaal u ahaa dhamaan isku dabaridka iyo diyaarinta gaariga qaraxa waana shakhsigii gaariga ka soo bixiyay garaashka gurigiisana ugu geeyay isagoo ku qalabaysan qaraxa darawalkii iyo milkiilaha gaariga ee Bocoosh ninka warkiisa maqlay haye see xujraan ariga uu sheegay horta erabana wax kama jiraan waa ani ninkan way soo wacay wuxuu dhahay Saleebaan oo imaaw u dhaha kuma imaan kariya dhaha nolol maalmeedka bursana ciyaala u shaqeysta gaari karola ka shaqeynaa geerishkana gaarigana 4 bilood u yaale motorka markaan motorna uu keensaday kaambi oo saaray lacagta kaambi taa ka rabaa motorkii markii aan weydiyo aan dhaho saaxiib motorkii aan ku saar waqti wuxuu yahay wuxuu leeyahay biri qarash raasina biri damba qarash raasa maalinta aan wacab habeenkii markaan waxaan dhahay saaxiib gaariga motorka aan ku saare suuxi ma imaati may biri imaana lambar gudisana suuxi markaan lambar gudisana sidii suuxi markuu lambar gudiso sidii kadib markaan waxaan dhahay niyo gaarigaan meeshaan ku dhaxleysteenyo mar walbana ku keenay asoo bad qaba u geen jiray 25 sano aan makaaniga gaari waqti walbana asoo bad qaba u geen jiray kan waxa uu sheegay wax kama jiraan waa meeqa sana ninka macmiltiin muddo badan gaarigan qarxay ma hay gaari kale muu leeyahay gaari kaas ka kaliya aan sameey jiraa geerisko keesi jiray ku kala soo gadana ma ku dhax ku kala soo oo warka ma hay mar soo ku kala oo gurguri oo eefir gaari hebel meel yaal eefir u dhaxabo aad ma soo fiirin wax kama ma soo fiirin waxaan dhahay gaariga meel yaal ninkii weydiyo u dhahay ninka wareysaan dhan shaqalku miliyaan dhaa macna hal gaari oo qabaaba hal gaari oo hal gaari oo la adiga waa wacdada iyo sheekada waa soo wacay uu leeyahay maxay tahay oo soo wacay anu ma wicnaa asaa soo wacay haye anu geeriskay goob shaqo iska joogo Saleebaan ma iimaan kartaa walaal subax khamiis ahayd madu gadoomiye subax khamiis ahayd soo wacay Saleebaan ma iimaanay u dhahay howl yar la iqabro ani shaqo ma qabi karo aan dhahay shaqaan ku jira gaariyan ka shaqeysanaa dhahay nolol maalmeedka ciyaalkii u bulsanay nin ciyaal 10 caruur ka saa kadibna waa markaas taleefanka noqod ku jiro oo wuxuu dhahay marka cuniga guriga geeriska soo galay ciilo ma kula joogo dhahay ciilo ilmo jooga hadda soo galaan geeriska markaas uu dhahay ciilo ii soo dir ciilo sidaan ugu diray ani ciilo asoo ku maqana ogaa shaqadiina iska gala marka warba iyo warba kama hayo shaqadiina maalmeedka iska racdisana gaariga ka shaqeysanay ciilo waa u diray haddana taleefanka uu soo celi ciilo ma ku imaado dhahay
ciilo ma arkin aan dhahay shaqadiina iska wata marka gudoomiye saas wax jiraan gaarigii qarax ku raran yahay oo ii keen asaa ku dhawey gaari qarax ku raran aan gudoomiye yaa u geey mar gaarigii gaari ani 4 bilood oo geerish ku jir gaari 4 bilood oo dhalata subad qabaan u geey jiraan 4 bilood dhamaato dhalata gaari geerish ku soo xariir jiray oo markaan geerish ku soo xariireen waxaan ku bal motor ikambi aan u saaro oo baxsado marka wuxuu dhahay motor ikambi markaan u saare كان موتورك حدا قرش راسا صباح سجاري أو قرحة أداء جيميا قربي صباح جاري أنا أو صباح البنا أو جيجري صباح سو قرحة مرك أداء جيميا صباح البنا أو جيجري جاري عيلو مرك مو يديش واحد مرك أوتجي هو صار لابنا أدقى عيلو وصار لابد جيرش وكسر لابد ما حكش غير عيلو وحنك أنا باورتو دقا جيرش سورجيس باورتو دقا مرك عيلو أداء مركو يصدر كلها أودرته عيلو مركو يصدر له أن عيلو وحنا مدينة كلها أوتك مدينة كلها هاي أنتكو علم تلف موت أنتكو وين ما عندنا مركز سعودة هي وين ما بستيج كوني برو هاي وين ما بستيج كوني برو بستيج كوني برو هاي وين ما ده بستيج كوني برو سيدي وتقع عنق عمل يعني مركو صالح معكو شيء مركو صالح تحبي مشي عنق وين ما هذا شغال أنا قارين كشقي سنة اللغة عجا حراي مركو صالح تعنق حاجة ما مدين حقي سكين ما ده هاي قاري قبل قاري حرماي مهين وفريز والله أنت سنة هم شقينا يعني وحلوك شقينا عمل قاري ما يغسنا براوجك هذه أنا شيء لا تسنى مدن من قدومي شيء لا تسنى ما يغجر هرب الوحري ما يعني شغاقة أو ولي شو ما نقول مدن دولة نقول سعادي ما يغمر الوحري سعادي أو ضد وإحنا الأحمرين ضد وإحنا الأحمرين لا مرسيد أحمر مع الويست مركز هذه ضد وإحنا الأحمرين لعق حاجة لعق اللي هو شو منه لابد أنت أوصل قاعد لعقتها معناه اللي هو شيء لعقتنا أسكب به eedeysanaha saddexaad Ismaaciil Maxamuud Ibraahin Ciilow isagoo fulinaya amarka eedeysanaha labaad Suleymaan uu ka helayo eedeysanaha koowaad Muxudiin Bacoosh ayuu busteejada Kuuya Barow ee degmada Baraawe ka soo qaaday caag lagu soo raray qaraxyada dadka ka hor hadalkooda maqleyno waa sargaan beenta maan gudumiyay waan u weergaan ragaa beenta bana shugay mina ani waan shaqo kumle maan gudumiyay shaqadii maan mina gaari aniga makaan أنا كمية لو أجلس كسمان دول كي من قاري أنا كمية أنا شغال لو أجلس شغايا أنا كان فرصة صار يرجع منها أنا كان أصلا الله معكم سمي أصلا هاي منها عدم حكم الدنيا أصلا هاي من محدين بقولكيس أصلا له هاي منها من بنشيك بنشيك هذا ربيان أي صغر منها أديك محدين متكت مايا محدين متكت مايا اسمه كان محدين لبي حديق لحوقة حسن عبدي عثمان فارح دبل حوقة شوطة محمد عبد الله iyo Ibraahim Siidi Cabdiraxmaan dhibanayaasha nool ay ka soo kabanaya dhibta gaartay ayaa ina la jooga maalinta fagaraha cadaaladda aniga waxaan ahay ninka laba xidig leh Xasan Taliyahana amniga airportka Baraawe baabuur nooha ah oo uu lahaa ninkaasna Muxudiino oo meesha ka diiwaan gashanay ayaa nugu qarxay waxa weeye ninka anigu waa ku dhaawacmay dadka kalena waa dhintay habraaca see ku soo galan baabuurta meesha waxa ku soo galay gaarigaanu meesha waa ka diiwaan gashanay askarinimo ku diiwaan gashanay Muxudiin muddo wuxuu shaqaysay oo ninka 4 sano iyo jajaba 17 bishii shanaad ayaa ninkaanu subaxda kamida waxa weey hawshii aan ku guda jirnaa diyaaradii ninka waxa waay noonka imaataqaadka diyaaraddu markay inta timaad dajido jaadka baxdo bacdeena la fasaxaa baabuurtii la soo fasaxay ninkan Muxudiina baakinkiya la geeyay waxa laga rarayay baabuurkii uu soo baakibay afar markii la saarayna jawaan waxa waay ninka waxa waay waa nagu qarxa gudoomiye ma garad meeshaas marka waxa dhimatay ninka laba nima ku dhimatay aniguna waa dhaawacmay ninka laba kale oo xagga fadhiyahuna waa ku dhaawacay markii idinka dhacday meesha ka dhacday ogtiina ka warbixinaysa le dhacdadii meesha ka dhacdo waa joogan ahay Muxudiin ciidanku ka tirsan yahay qaybta ka tirsan yahay Muxudiin askari anaga naga tirsan oo ahay amniga airportka ka tirsan yahay amniga ma ka tirsanay laakiin askari shaqaysto ahayo gaariga noohada lahow ahay oo asoo ku shaqaysto gudoomiye ma garad in badan oo ku shaqaysay marka anagu waxaas ma aanaa ku ogeyn in askari noo ahay wanaagsan
shaqaysta meesha ka diiwaan gashan marna ninka la howlihiisa ka qabsada marna meeshan ka shaqaysto ay ku dawiyay ragga kale ma taqaan meesh fadhiyo maya muxudiin la aniga aan aqaanaa dhabarka waxay gaareen dhaawac maxaa ka shaqaysaa see wax u dhaceen maalintaas eelboorka anuu joogay qarax ka dhacay meesha ka shaqeynaya maxaa ka shaqaysaa askariin waa ahay meesha qaadka dadka waa la shaqeeyaa qaadoola aan la shaqeynaya baabuur aan ugu qarxay anoo sii jeedo intee wax ka gaareen marka dhabarka see xaaladdu ahayd marka wax dhacayaan maxaa qarxay maxaa dhacay xilli jaamay ahayd baabuurta dhan shaqaa lagu jiro markaas qaada imaaday diyaaradda markay soo degtay baxday baabuurta la soo xareeyay gadaa anagoo sidii shaqada lagu jiro baabuuraa qarxay oo meesha weligiis qaadka qaadi jiray adi marka jamaa ku gaaray maya hilibka waxay gaaray bis gaari yaroo barobakis darawalka ahay gaarigaasaa waxaan ku qaadaa qofka jaadka mas-uulka ka ah marka waxaan u tegey shaqada jaadka meeshaas mar walbana waa tegi jiray markaan tagay kadib annagoo shaqadii jaadka ku jirna oo jawaan qaad aad tolaayo ayaaba wixii dhaceenba jawaana tulaysi ku fuururay kadib kool baa igu dhacday bis markaasaa igu wardambeysay koolba see inaa qaraxi iyo wixii macnaha adiga adoo sii jeedo gaashada ka dhacay miya shartada ka dhacay intuu ka dhacay gacanteeda bidix oo baabuurka yaallay annagoo sii fuururay hal jili baa dhulka iyaala midna kor waa u hayay jawaanaa tolaayo jawaankii anoo ku fororo tola iyo bis inay wax igu dhaceen oo sida qof baabuur lagu dhufto camalaan dareemay meeshaasaan ku dhacay markaasay ugu wardambeysay markaasi wax ku gaareen xaaladaad soo noqotay kadib cabaaraan jiifay anoo jiifo waa soo kacay iyo waxaan arkay garabkiiyo dhinacan hilibka ilaalaada madaxiiyo dhiigaayo bis waa kacay kadib waaba dadaa ii imaad waana leega wada meesha baabuurka qarxiyaa lahay muxdiin aa iska lahay gaariga qaadka qaadoo ka mid ahay mar walbana wuu joogi jiray meeshaan ka wada shaqey jirnay isna meeshuu joogi